halka aad daawadayaal warkaasi kala socotaan waa telefishinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee TV-ga magaalada Kismaayo. Haatan iyo akhbaraadkii dibadda. Shakhsiyaad lagu eedeeyay in wadanka waqooyiga Kuuriya ay ka caawiyaan sameynta iyo dardargelinta nukliyeerka ayaa waxaa lagu soo rogay cunaqabatayn. xukuumadda Washington ayaa cunaqabatayn shakhsiyadeed dul dhigtay laba sargaal oo Kuuriyada waqooyi u qaabilsanaa horumarinta nukliyeerka, waxaana Mareykanka uu sheegay in uu beegsanayo dadka sida gaarka ah u horumarinaya gantaalada waqooyiga Kuuriya. magacyada labadan sargaal ayaa kala ah Kim Jong Sik iyo Ryong Bong Chol, kuwaas oo wasaaradda maaliyadda Mareykanka ay shaacisay magacyadooda iyada oo ku sheegtay inay labadooduba yihiin hogaamiyayaasha barnaamijyada gantaalada ridada dheer ee Kuuriyada waqooyi, taas oo keentay in Mareykanka uu qaato tallaabadaas oo loogu jawaabayo gantaaladii ay waqooyiga Kuuriya tijaabisay. wakaaladda wararka Reuters ee dalka Britain ayaa baaritaan ay sameysay bishii May ay ku sheegtay in labada nin iyo Chong Chang-ha oo gantaalada sameeya uu soo xushay Kim Jong-un ayna agtiisa shakhsiyaad caan ka ah yihiin. kulan ay jimcihii yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cunaqabatayno hor leh lagu saaray Kuuriyada waqooyi, arrintaas oo jawaab u ah gantaaladii uu dalkaasi dhowaan tijaabiyey. xukuumadda Pyongyang ayaa sheegtay in arrintaasi ay tahay tallaabo dagaal ayna u dhiganto cunaqabataynta dhaqaale oo dhammaystiran. cunaqabatayntan cusub ee Mareykanka ayaa ka hor istaagi doonta labadaasi nin inay dhaqaalahooda wareejistaan, taas oo lagu fariisin doono wixii hanti ah ee ay macquul tahay inay ka taalay dalka Mareykanka. waxaa dowladda Kuuriyada waqooyi ay sanadkan hore tijaabisay gantaalkii ugu ridada dheeraa ee abid ay rido, wuxuuna sheegay in hadda wixii ka dambeeya Kim Jong-un uu toos u duqeyn karo dhammaan Mareykanka oo dhan. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad kala socoteen telefishinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo uu idinla socodsiinaya anigoo Axmed Maxamuud Jaamac. hadda waa naga inta aan warkan warkii ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa anagoo isku duuban. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.